tiigsiga cusub ee dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waa qorshe toosan Puntland tanaaday iyo tallaabooyin waaweyn oo dhanka horumarka loo qaado iyadoo tubta loo marayo hirgelinta yoolashaasina ay tahay tayayn tala wadaag iyo taabagelin tusaalena waxa ay noo ku filan boqolkii maalmood ee tegey iyo guulaha la taaban karo ee ay xukuumadda cusub ee Puntland ku tallaabsatay Puntland 100 maalmood iyo 100 waxqabad madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaa la doortay 8 Janaayo sanadkan 2019 maalintaasi waxay dadka reer Puntland u ahayd mid taariikhi ah madaxda cusubna waxay u ahayd bilowga tallaabada koowaad ee ay ugu adeegayaan shacabkooda saacada gudahood isaga oo nasan wuxuu madaxweyne Deni qaaday tallaabadii koowaad ee waxqabad wuxuuna markiiba xakameeyay kharashka ka baxa bangiga iyo dhammaan akoonnada dawladda si loo ilaaliyo hufnaanta hantida shacabka loogana baaqsado musuqmaasuq iyo wax isdabamarin maalmaha dabaaldegga iyo hambalyada kadib madaxweyne Deni wuxuu markiiba sabab u noqday isu soo dhoweynta madaxda siyaasadda ee Soomaaliyeed iyadoo caleemasaarkiisu ahaa mid kulmiyey madaxda dawladda federaalka mucaaradka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah federaalka wuxuu ahaa waa bariyey oo qof walba dhinaciisa ka bogaadiyey in madaxda cusub ee Puntland ay abuureen fursad midaynaysa Soomaali taas oo midho dhalkeeduna uu noqday in la iscafiyo isaga oo ka duulaya halku-dhiggiisii olole ee tayayn iyo tiigsi madaxweyne Deni wuxuu soo dhisay xukuumad tayaysan oo markiiba tisqaaday waxaa hore laga bilaabay qorshayaasha dawladda cusub oo ay meel sare uga jiraan wax ka qabashada amniga dhaqaalaha horumarinta iyo dimuqraadiyadda si loo taabageliyo yoolasha xukuumadda cusub Maaj 12 madaxweyne Deni wuxuu furay shirka jihaynta xukuumadda cusub si qorshaha xukuumadda loogu jaangooyo 8 yool iyo 66 ballanqaad ee madaxweynaha waxay ahayd maalmo ay wasiirrada cusubi isla wadaageen xogtooda dejisteen qorshaha iyo istiraatiijiyadaha ay ku wada shaqayn doonaan kadibna ay bilaabeen inay jaanta isla helaan xoojinta amniga waa hubaal in amnigu uu yahay yoolka koowaad ee xukuumadda sidaas darteed madaxweynuhu wuxuu wakhti yar gudihiis ku bilaabay qorshe tirakoob si loo helo ciidan tirsan oo tayaysan guddiyo arrintaas loo saaray ayaana ka howlgalay xarumaha ciidamada ee dawladda tallaabooyinka horumarinta amniga ee ay qaaday xukuumaddu waxaa ka mid ah in la tababaray ciidamo cusub oo qayb ka noqday booliska iyo in la bilaabay hirgelinta xeryo lagu tababarayo ciidamada dawladda Puntland xarumahaas oo laga dhagax dhigay gobollada Karkaar Sanaag iyo Mudug waxay dawladdu ka jawaabtay markiiba xaaladdii amni ee magaalada Boosaaso iyadoo la dejiyey istiraatiijiyadda guud ee amniga gobolka Bari taas oo ay si joogto ah fulinteeda isaga kaashanayaan guddi ka kooban wasiirro maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso saraakiil ciidan madaxda dhaqanka iyo guddiyada xaafadaha howlgallo ciidan oo qorshaysan ayaa halkaas laga fuliyey iyadoo ay natiijaduna noqotay in dadka shacabka ahi ay dareemaan isbeddel amni oo soo celiyey firfircoonidii dhinac walba ee magaalada isbeddel ayaa lagu sameeyey hoggaanka talisyada qaybaha booliska ee gobollada Bari Nugaal iyo Mudug waxaana dhammaan lagu saleeyey kormeero iyo la tashiye lala sameeyey khubarada iyo waxgaradka bulshada dhinaca kale waxaa la xoojiyey wada shaqaynta shacabka iyo laamaha amniga dawladdu waxay xil weyn iska saartay xakamaynta iyo dabargoynta faldambiyeedyada waxaana xukun lagu riday eedaysanayaal lagu helay dembiye isugu jiray dil iyo kufsi gaar ahaan kiiskii Caayisha Ilyas oo ahayd ardayad da'yar oo kufsi iyo dil loogu geystay degmada Gaalkacyo dawladdu waxay ka jawaabtay daandaansi uu maamulka Somaliland ka sameeyey gobolka Sanaag ciidamada dawladda Puntland oo ay garab taagan yihiin shacabka gobolka Sanaag ayaa adkeeyey difaaca waxaana halkaasi booqday wasiirro iyo saraakiil ciidan iyadoo ay natiijaduna noqotay in saraakiishii ciidamada Somaliland ee gobolka Sanaag ay isxasileen dhammaan ciidankoodiina ku soo biiriyeen Puntland tallaabadaas oo ay shacabka gobolku bogaadiyeen dibadbaxyo waaweynna ku soo dhoweeyeen madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wafdi wasiirro ah oo uu horkacayo ayaa booqday fariisimaha ciidamada Puntland ee aagga deegaanka Afurur si qiimayn loogu sameeyo xaaladda ciidamada iyo baahiyaha ay qabaan looguna bogaadiyo shaqada adag ee ay dalkooda
iyo dadkooda u hayaan. maaliyadda iyo dhaqaalaha. kor u qaadista dhaqaalaha Puntland, hirgelinta mashaariicda maalgashi iyo ilaalinta hufnaanta maaliyadeed waxay lafdhabar u tahay qorshaha xukuumadda cusub ee doonayso in lagu saleeyo xoojinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka Puntland. waxay dawladdu dejisay istaraatiijiyadda hufnaanta maaliyadda si loo tayeeyo habka loo maamulo hantida dawladda, loo dardargeliyo isla xisaabtanka, loona xakameeyo kharashaadka dawladda. madaxweyne Deni wuxuu amar ku joojiyey makiinadii lacag daabicista iyo cashuur dhaafka aan daruuriga ahayn si meesha looga saaro wax kasta oo horseedi kara sicir barar caqabadna ku noqon kara kobaca dhaqaalaha. 100 maalmood gudahood waxay dawladdu qaaday tallaabooyin ugub ah oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa, iyadoo la xiray shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda kadib markii lagu helay lunsasho hanti dawladeed iyo musuq. bixinta mushaharaadku waxay qayb ka tahay isbedelada la bogaadiyey ee dhinaca dhaqaalaha, taasoo ay si weyn u soo dhoweeyeen ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladdu. waxaa kormeer iyo u kurgelid heer gobolaha lagu sameeyey xarumaha dakhli ee dawladda Puntland si wax badan looga ogaado habsami u socodka hawlaha dakhli ururinta. qorshaha lagu horumarinayo maaliyaddu kuma eka oo qura dakhliga gudaha, balse waxaa sidoo kale la dejiyey istaraatiijiyad lagula macaamilayo hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyayaasha Puntland ka taageera dhinaca dhaqaalaha. arrimaha bulshada. Maaj 20keedii 2019 waxay dawladdu daahfurtay wejiga saddexaad ee mashruuca waxbarashadu waa iftiin, kaasoo ah qorshe waxbarashada lagu gaarsiinayo deegaanada fogfog. Maaj 24keedii 2019 waxaa Garowe lagu daahfuray mashruuc qalliin lacag la'aan ah loogu sameeyey in ka badan 100 qof oo faruuran. mashruucan oo uu daahfuray madaxweyne Deni waxaa ka faa'iidaystay dad u badan danyar kana kala yimid gobollada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Abriil 11keedii 2019 dawladdu waxay bilowday qorshaha darajo u samaynta shaqaalaha dawladda, kaas oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta shaqaalaha iyo ilaalinta hufnaanta shaqada. Abriil 22keedii 2019 waxay wasaaradda caafimaadku si degdeg ah uga jawaabtay xaalad caafimaad oo ka dhalatay cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaano hoostaga degmada Taleex ee gobolka Sool. kooxo caafimaad oo waday gurmad degdeg ah oo isugu jiray daawooyin iyo cuntooyin ka nafaqaysan ayaana halkaas gaaray. Abriil 28keedii 2019 waxaa magaalo madaxda Puntland ee Garowe ku qabsoomay shirweyne ay isugu yimaadeen ergooyin matalayay haweenka Puntland. kulankaas oo ahaa mid ay wasaaradda haweenka ee Puntland hagaysay, waxaa muddadii uu socday lagu gorfeeyey doorka ay haweenku ka qaadan karaan siyaasadda, horumarinta bulshada iyo sugidda amniga. May 8keedii 2019 wasaaradda caafimaadku waxay marakaneecooyin iyo agab kale u qaybisay in ka badan 60,000 oo qof oo u badan dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Puntland. waxaa sidoo kale kaneecada laga buufiyey 16,000 oo guri oo ku yaala degmada Boosaaso. adeeggaas oo ay dad 70,000 tiradoodu kor u dhaafayso ka faa'iidaysteen. May 18keedii 2019 madaxweynuhu wuxuu daahfuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee Puntland, iyadoo mudnaan gaar ah sanadkan la siiyey habsami u qabsoomidda imtixaanaadka maadaama uu imtixaankii ay dawladda federaalku qaadi lahayd fashilmay. ardayda ayaa hal mar u wada fadhiistay imtixaanka dhammaan gobollada Puntland. kuwa duruufaha caafimaad dartood imtixaanka u geli waayena waxaa guryahooda loogu geeyey imtixaanka iyo korjoogayaal. Juun 11keedii 2019 wasaaradda haweenku waxay magaalada Gaalkacyo ku daahfurtay mashruuca kabidda bulshada iyo ka hortagga tacaddiga ka dhanka ah haweenka. mashruucan oo socon doona muddo 3 sano ah waxaa fulintiisa iska kaashan doona wasaaradda haweenka, hay-adda IRC iyo ururka maxalliga ah ee Kaalo. wadatashiga dawladda iyo shacabka. dawladdu waxay door muhiim ah siisay kor u qaadista kalsoonida shacabka iyo wadatashiyada lala yeelanayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana uu madaxweyne Deni aad u dhageystay baahiyaha jira si uu ugu saleeyo mudnaanta qorshayaalka waxqabad ee xukuumaddiisa. gobolka Nugaal safarkiisii ugu horreeyey ee dhinaca dhulka ah, madaxweynuhu wuxuu la fariistay oo taladooda iyo baahiyahoodaba dhageystay bulshada degmooyinka gobolka Nugaal ilaa uu ka gaaray xarunta gobolka Karkaar ee Qardho. gobolka Karkaar madaxweynuhu wuxuu kormeeray xarumaha dawladda iyo kuwa arrimaha bulshada ee magaalada Qardho, kadibna
wuxuu kulamo gooni ah la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka isagoo garowsan ahmiyadda ay tala wadaagga iyo isxog waraysigu u leeyihiin xoojinta kalsoonida ay shacabku ku qabaan dawladda gobolka bari waxgaradka aqoon-yahanada madaxda dhaqanka iyo ururada bulshada ayay dawladdu kulamo kula qaadatay magaalooyinka Carmo iyo Boosaaso si la isula ogaado xaaladda guud ee gobolka waxqabad ka socda iyo tallaabooyinka u baahan in la sii ambaqaado gobolka Mudug muddadii uu madaxweynuhu ku sugnaa gobolka Mudug wuxuu kulamo la qaatay dhaqanka culimada siyaasiyiinta dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadaas ayaana horseeday in isbeddel lagu sameeyo maamulka gobolka Mudug lana dardargeliyo maamul wanaagga sarreynta sharciga iyo xoojinta nabadgelyada horumarinta si gaar ah waxay xukuumadda cusub tixgelin u siisay in la dardargeliyo mashaariicda horumarineed ee socda lana soo xirageliyo mashaariic kale oo hor leh si shaqo abuur loogu sameeyo bulshada loona kobciyo dakhliga dawladda qorshaha horumarinta waxaa lagu bilaabay in dib loo soo celiyo mashaariicda horumarineed ee ay xayiraaddu saarnayd kuwaasoo uu ka mid ahaa mashruuca lagu dhisayo marinka gaalkacaya Garowe ee ay dhaqaalaha ku baxaya dawladda Jarmalku ku deeqday dawladdu waxay sidoo kale sii dardargelisay mashruuca ballaarinta dekedda Boosaaso iyo mashruuca dhismaha dekedda Garacad labadan mashruuc oo ahmiyad weyn u leh horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya March 16keedii 2019 madaxweynuhu wuxuu xariga ka jaray kaydka shidaalka diyaaradaha ee garoonka General Maxamed Abshir ee Garowe March 19keedii 2019 waxay dawladdu daahfurtay mashruuca maamulista biyaha iyo khayraadka badda ee Puntland mashruucan oo qiimo weyn ugu fadhiya horumarinta nolosha dadka iyo ilaalinta deegaanka March 30keedii 2019 madaxweynuhu wuxuu xariga ka jaray wejiga koowaad ee dhismaha marinka ceel daahir ceere gaabo isagoo isla xilligaasna dhagax dhigay wejiga labaad ee laamisaarista Abriil 6keedii 2019 wuxuu madaxweynuhu dhagax dhigay mashruuc xaafad casri ah looga dhisayo degmada Boosaaso isla maalintaas wuxuu madaxweynuhu sidoo kale dhagax dhigay mashruuca xalka waara oo ah mid 200 oo guri loogu dhisayo barakacayaasha iyo garoonka kubadda cagta ee isla degmada Boosaaso Abriil 15keedii 2019 madaxweynaha Puntland iyo wasiirka duulista iyo garoomada Xuseen Cismaan Lugator ayaa magaalada Dubai kulan kula qaatay madaxda shirkadda duulimaadyada ee Fly Dubai kulankaas oo ay ujeedadiisu ahayd sidii shirkadda Fly Dubai ay duulimaadyo uga samayn lahayd garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee Puntland Abriil 20keedii 2019 wasaaradda deegaanku waxay dhagax dhigtay 5 biyo xireen oo laga hirgelinayo inta u dhaxaysa deegaanada Jalam iyo Xarfo sidoo kale waxay wasaaraddu dhamaystirtay biyo xireenno ay tiradoodu 10 gaarayso oo ku kala yaala gobollada Nugaal Mudug Bari Karkaar Highland iyo Sanaag Abriil 29keedii 2019 wuxuu madaxweyne Deni magaalada Garowe ku daahfuray shirka kalluumaysatada Soomaaliyeed kaasoo ay ka soo qayb galeen iskaashatooyinka kalluumaysiga iyo wasiirada wasaaradaha kalluumaysiga dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka May 31keedii 2019 waxay dawladdu heshiis lagu dhisayo dekedda kalluumaysiga ee degmada ay la saxiixatay shirkadda CCECC ee uu fadhigeedu yahay Shiinaha June 5keedii 2019 waxay dawladda Puntland heshiis la gashay shirkad kale oo Shiineys ah laguna magacaabo Tongshan Economic Development Zone heshiisyadaas oo kala ah mataanaynta labada magaalo ee Tongshan iyo Gaalkacyo iyo weliba in deegaanada Puntland laga hirgelinayo aag ganacsi oo loogu magac daray aagga dhaqaalaha ee Geeska Afrika June 12keedii 2019 madaxweynaha Puntland wuxuu magaalada Addis Ababa kula shiray madaxda shirkadda duulimaadyada diyaaradaha ee Ethiopian Airlines kulankaas ayaa looga wada hadlay sidii shirkadda duulimaadyada caalamiga ah ee Ethiopia ay Puntland duulimaadyo joogto ah uga hirgelin lahayd June 14keedii 2019 waxaa magaalada Garowe soo gaaray wafdi ka socda dalka Ethiopia oo uu horkacayay gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Ethiopian Airlines ujeedada socdaalka wafdigan ayaa ahayd sidii ay qiimeyn ugu samayn lahaayeen garoomada diyaaradaha ee Puntland maadaama shirkadda Ethiopian Airlines ay dhowaan duulimaadyo caalami ah ka bilaabi doonto Puntland siyaasadda
siyaasadda iyo guulaha laga gaaray waxaa salo ah in Puntland ay hogaamisay siyaasadda wada hadal iyo wada shaqayneed ee dalka kadib calaamasaarkii kulmiyey dhammaan dhinacyada Soomaalida waxay dawladdu ciyaartay door siyaasadeed oo dheellitiran kaas oo sababay in Puntland ay noqoto meel lagu soo hirto madaxweyne Deni wuxuu kulamo la qaatay danjirayaal iyo wakiillo ka socda dalal dhowr ah dhammaanna waxay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya si gaar ah arrimaha Puntland waxaana ka mid ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo madaxweyne Deni kulan kula qaatay magaalada Boosaaso kulankaas oo noqday kii u horreeyay oo meel ka baxsan Muqdisho uu safiirka Mareykanku kula yeesho mas'uul Soomaaliyeed isaga oo qaadanaya doorkiisa hogaamineed madaxweyne Deni wuxuu isugu yeeray madaxda dawladda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dawlad goboleed wuxuu fidiyey gogol nabadeed si looga gudbo caqabadaha jira maadaama uu dalku marxalad aad u adag marayo Puntland waxay kor u qaaday iskaashiga iyo wada shaqaynta dawlad goboleedyada waxaana lagu qabtay Garowe shir iskaashi oo ay isugu yimaadeen Puntland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sidoo kale waxay Puntland iskaashi la samaysatay maamulka Galmudug dimuqraadiyadda hirgelinta nidaamka dimuqraadiyaddu wuxuu qayb ka yahay qorshayaasha waaweyn ee hoggaanka cusub ee Puntland si mustaqbalka loo hirgeliyo nidaamka axsaabta badan iyo hannaanka doorasho ee hal qof iyo hal cod taas iyadoo laga duulayo waxay dawladdu xilli hore ambaqaaday tallaabooyinka loogu gogol xaarayo nidaamka xisbiyada badan iyadoo muddo kordhin loo sameeyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland waxyaabaha rajada geliyey shacabka waxaa ka mid ah in dawladdu ay xilli hore bilowday wacyigelin ku saabsan doorashooyinka hal qof iyo hal cod tijaabada u horreysana lagu dabaqayo doorashada golayaasha deegaanka ee degmooyinka Dangorayo Waaciye Xarfo iyo Carmo tallaabooyinka waxqabad ee ay xukuumadda cusub ee Puntland qaaday tan iyo markii uu madaxweyne Deni soo dhisay 10kii bishii February ee sanadkan 2019 waa kuwa togan oo ay dadka reer Puntland ugaga tusaale qaadan karaan timaadada dhow iyo himilooyinka waaweyn ee ay hirgelintooda Puntland ku taamayso